hay-ada wadaniga Ayora ayaa maanta magaalada Boorama xaflad ugu qabatay 80 arday oo iyagu dhamaystay xirfadaha noocyadooda kala duwan. xirfadaha ay ardaydaasi barteen ayaa waxa kamid ahaa xirfada dawaarka, laydhka iyo sidoo kale xirfada cunto karinta. waxaana xirfadahani la barayay dhalinyaro ka soo jeeda qoysaska dadka danyarta ah ee degan deegaanka Siteexadi ee ku yaala duleedka magaalada Boorama, isla mar ahaantaasna uu ka dhisan yahay 240 guri. mashruuca tababarkan dhalinyarada loo sameeyay ayaa daba socda mashruuca deegaanka Siteexadi ee dadka danyarta la dejiyay, taasoo dadkaasi caruurta ay dhaleen loo sameeyo tababar ay ku shaqeystaan isla mar ahaantaasna ay noloshooda ku kobciyaan. munaasabadda xafladda qalin jabinta ayaa waxay ka dhacday hotelka Maana Guest House ee magaalada Boorama, waxaana ka soo qayb galay munaasabadani mas'uuliyiin ka socda hay'adda wadaniga Ayora, wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada gobolka Awdal, iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Boorama iyo waalidiintii ardaydani qalin jabinaysay. ugu horreyntii waxa halkaas ka hadlay madaxa mashruuca xirfadaha gacanta ee hay'adda wadaniga Ayora, mudane Cilmi Maxamed Cilmi, waxaana uu ka warbixiyay tababarkan ay soo sameeyeen ardaydani maanta qalin jabinaysay. xirfadaha kala duwan haddana inta salaanta kaga gudbo waxay ahaa mashruucani mid ay wada socdeen mashruuc guryo loogu dhisayay dad IDP ah ama dad community magaalada ku noolaa ama dadkii kale ee u baahnaa in guryo loo dhiso. way mashruucan maalgelinaysay dadka Japan bayna siiyay lacagta waxa lagu fulinayay, laakiin waxa fulinaysay oo annaguna qayb ka ahayn hay'adda UN tahay. wuxuu ahaa mashruucaas oo isku jiray in guryo loo dhiso dad kan markaa annagu maanta halkan u joognaa wuxuu daba socday kaa sababtoo wuxuu ahaa dadka halkaa degi doona in caruurtooda ama dhalinyartooda loo tababaro si ay ugu shaqeeyaan qoysaskooda oo ay wax ugu soo kordhiyaan. marka iyagu guryuhu socdaan ayaa kana qayb ka ahaa oo ardaydooda iyo caruurtooda loo tababarayay. geesta kale isna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda wadaniga Ayora, mudane Idris Faarax Muuse, waxaana uu ka warbixiyay mashruucan waxa uu sida hore leenoogu sheegay uu la socday mashruucii guriyeynta Boorama, leeyahay mashruuca guriyeynta Boorama ee leenagu caawiyay ee ka kooban 215 guri ee aragteen si halka laga dhisay galbeedka magaalada Boorama laga dhisay. guryahaas ayuu ku lamaanaa. ujeedada loogu lamaanayna waxay ahayd in dadweynaha halkaa degaya dhalinyaradooda da'yartooda la baro xirfado ay ku shaqeystaan runtii. geesta kale iyaguna waxa hadalka iska daba qaatay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal iyo sidoo kale isduuha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada gobolka Awdal iyo xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Boorama, kuwaas oo dhammaantoodba u mahad celiyay ardaydii dhamaysatay tababarka hay'adda wadaniga Ayora ay u samaysay. laakiin ujeedada aan leeyahay waxa weeyaan waa in horta ardayda maanta dhamaysanaysa ay gartaan in xirfadu ay ka qaalisan tahay cilmiga kale. oo waxa raada marka iskiilka la sheegayo waa power, nacam waa awood. qofku hadduu leeyahay xirfad uma baahna wax kale. insha Allah waxaan iga rajaynayaa inaad noqotaan kuwa garta xirfadda ay barteen, kuwii ku shaqo tegi lahaa ama wax ku qabsan lahaa ama ummadda markaa wax ugu soo kordhin lahaa. barnaamijkaasi wuxuu ahaa barnaamij dhammaystiran in dadkii maxay ahayd loo baahnaa ee loogu talagalay in la guddoonsiiyo in maxay ahayd ciddii fulinaysay ee laga helay programkani waxay ahayd inay soo deeqeen dadka Jabaanka oo ka dhisay guryo fara badan magaalooyinka Burco, Berbera, Hargeysa iyo Boorame. waxa loo tababaray ardaydan waxa weeye guryaha halkaa dadka la dejiyay dad IDP oo dad taagdaran oo dad aad iyo aad u jilicsan si uga faa'iideeyaan dadkoogaasi ayaa ardaydu dhalinyartii ka dhalatay Siteega ayaa waxa u qabatay hay'adani tababar farsamo si loo ummadda ugu shaqeeyaan.
kastaba ha ahaatee wax halkaasi lagu guddoonsiiyey ardaydii dhamaystay xirfadaha noocyadooda kala duwan dhammaanba qalabkii ay ku howlgeli lahaayeen isla mar ahaantaana ay ku shaqaysan lahaayeen iyo sidoo kale shahaadooyin caddaynaysa in ay barteen xirfadaha noocyadooda kala duwan waa nuux kadiye telefishinka caalamiga Star Buurama.